Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gudbinana odhaahyadii iyo halkudhigii naambalyo Boolaantii. Waxaan nafteeda ku tuuraa goobaha baan, kadibna xalka ayaan ka raadiyaa. Rayidka waxaad xukumi kartaa marka aayahooda tustid. Astaamaha ugu wanaagsanee hogaamiyuhu wadaganaashaha bilaa cadhada. Ciidan adhiya oo libaax hogaaminayo ayaa ka wanaagsan ciidan libaaxya oo riyo hogaaminayso. Hogaamiyaha qalbigiisu waxa uu ku yaala madaxiisa. Fulay kaliya oo ciidankaya ku jira ayaa igaga daran 10 soo majista colka cadawga ku jira. Fikirka ku qaado xilli kugu filan si hadday shaqadu bilaamato jooji fikirka howlgal. Ilmaha mustaqbalkiisa waxa samaysa hooyadii. Dhufayska ugu adag waa gabadha wanaagsan. Qofka iskuul dhisa xabsi ayuu xidhay. Qofka waddankiisa qiyaame iibiya waa sidii qof aabiil cad intuu ka xaday tuugta siiyay. Tuugna abaalin maayo aabihiina saamixi maayo. Nolol bilaa shaqo waa culays aanan la sidi karin. Nasiibadu hooyada garaad badnida. Qaabka ugu wanaagsan aad ballama u ilaalin kartaa waa inaanad ballanba qaadin. Ninka gabadhiisa ku dhaca ii tali oo wax walba faraha uga qaada. Kaalintii raggana uu ka dhacaya tii dumarkana gaadhi maayo. Dagaalku waa sida jacaylka ina la waajibaana. Geesinimada dhabtahay waa ta 3 habeenimo lagu dagaalado. Xidmadka dhabta ee ummadu wajijaabinka ay wax walba ka waaya arkaan. Geesinimada asalkeedu waa fikir. Inaasan ku soo gabagabeynaa naambalyo Boolaantii odhaahyadiisii. Wassalaamu calaykum.